عبد الله ويدحليا عبد الله إما دحليا عبد الله ويدحليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الشيخ عمر عبد الكافي wuxuu ka sheekay qiso runtii aad iyo aad cajiib ah. Wuxuu yiri nin acraabi ah, reer baadiye ah, badawi ah ayaa wuxuu dhalay 3 wiil. Markaasuu wuxuu u bixiyay Cabdullaahi Cabdullaahi Cabdullaahi. mid walba ayaa kamid ah 3 wiil waxa magaciisa la oran jiray Cabdullaahi. markii ajashiisii ay timi oo uu xanuunsaday oo nolosha ka qoostay si wad dhimanaysa ayuu wuxuu yiri عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث. عبد الله ويدحليا عبد الله إما دحليا عبد الله ويدحليا. إسلام مركينا نفتي أيها كبحري وليش هو يسقبصدين بدل ما هو يري عبد الله يجي عبد الله يجي إما دحليين أنا ما هين هذا مواقع عبد الله يجي أن دحليين وليش يمكن دم يحسوا أفكارتين إن أي قاضية maxkamadda inay u tagaan oo asagu uu maaragtay kala bixiyo. qaadigu marka wuxuu joogay magaalada, iyagu baadiye joogan magaaladii ugu dhaweyd. marka waxay noqotay in loo safro oo qaadiga la aado. maalintii dambe la baxay 3 nin waa israaceen, waxay aadeen qaadigii. jidkii intii ay sii marayeen ayaa waxa ka hor yimi nin kale oo rabaadiyaha. ninkii rabaadiyaha ahaa raggii uu salaamay, kadibna wuxuu weydiiyey rati ka lumay. wuxuu yiri ratiba iga lumay, ratigaas ma aragteen? waxay yiraahdeen maya, habay rati wax ratiya oo baadi ah oo lumay maynan arag. markii uu dhaqaaqay ayaa mid kamid u yeeray. markaas ayuu wuxuu ku yiri ratigaagu ma illa ah? ninkii rabaadiya wuu farxay, wuxuu yiri ha, ratigaygu illa ah. kii kale wuxuu ku yiri ratigaagu ma daba go'naa, wasaynta ma ka go'naa? haddana wuu sii farxay ilaa waxa la tilmaamay waa ratigiisii. wuxuu yiri ha. kii kale oo saddexaad baa wuxuu ku yiri ratigaagu jiis ma aha, laangarra ma aha. ninkii rabaadiga aad buu farxay, wuxuu boqolkiiba aaminay nimankan in ratigiisii ay arkeen oo markaas ay meel ku og yihiin. markaas ayay waxay ku yiraahdeen maynan arag ratigaagii. ninkii wuu xanaaqay, wuxuu ku yiri ratigaygii baa tilmaamteen 3 sifo ama 3 tilmaam oo 3daba lahaa ayaa sheegteen. waa maray waxaad tirahdeen ratigu ma illa ah, ratigu waa illa ah. marna waxaad tirahdeen ratigaagu ma daba go'naa, ratigu waa daba go'naa. marna waxaad tirahdeen ratigaagu jiis ma aha, ilaan garre wuu ahaa. marka ratigii meel ku sheega imanka wuxuu yiraahday mayna arag. kadib wuxuu yiri waa idin dacweynayaa qaadiga ayaan iyo maxkamadda ayaan u tagayaa. waxay ku yiraahdeen annagaba qaadiga u soconnaa, maxkamadda annagaba muxuu ahaa u soconnay nala jaanqaad. waa la israacay. goor casar ah ayaa magaaladii la tegay oo maxkamaddii la tegay, qaadigii oo fadhiya. dacwadii waxaa furay ninkii rabaadiyaha ee ratigu ka lumay. ninka ayaa wuxuu ku yiri qaadiyow, nimankani waxaan weydiiyey ratigi iga lumay. waxay tilmaameen oo weliba mid u tilmaameen ratigayga tilmaamihiisii. waxay yiraahdeen ratigaagu ma illa ah, ratigaagu ma daba go'naa, ratigaagu jiis ma aha. waxa ay tilmaameen ratigaygii buu ahaa. intaasoo tilmaamood 3duba ratigaygii ahay. waxayna ileeyihiin ma hayno, meelna kuma ogin. qaadigii ayaa wuxuu u yeeray ninkii yiri ratigaagu ma illa ah. markaas ayuu wuxuu ku yiri ratiga ninkan miyaad aragtay? wuxuu yiri maya. soo ku ogaatay buu markaa daba in ninkan ratigiisa uu illa ah. wuxuu yiri xoolaha khaasatan xoolaha wax daaqa oo ay geelu ka mid yihiin, marka ay geedka daaqayaan ama ay cawska cunayaan, geelu labada dhinacba geedka uu ka daaqaa. maadaama labada dhinacba uu wax ka arkayo wax uu jeedo. waxaan soo arkay buu yiri dhulkii aan soo maray geedo hal dhinac laga daaqay oo hal dhinac laga cunay. sidoo kale dhulkana cawskana hal dhinac laga daaqay. sidaas daraaddeed waxaan ogaaday buu yiri meeshaan in uu maray rati illa. sidaasaan u weydiiyey. hay wuxuu yiri adigu see ku ogaatay ratigiis in uu daba go'naa, sayn go'naa? wuxuu yiri caadatan geelu marka uu saaloonayo
haddii saalada markuu dhigayo wuu firdhiyaa oo saynta ama dabada ayaa saalada firdhisa. waxaan soo maray buu yidhi oo aan soo aragnay geel ama rati ama tulid hal ah oo saalootay sidii koombadii camal saalada u dhigtay, yacni saaladeeda meel bay isugu aruurtay oo ma fadhisanayn. taa waxaan ka fahmay buu yidhi ratigii saalooday meeshaan ku saalooday inuu ahaa rati aan daba lahayn ama sayn lahayn, ma firdhan saaladiisu. kii kale wuxuu yidhi sidee ku ogaatay ninkaan ratigiisu inuu jiis ahaa? wuxuu yidhi raadka aan soo arkay ayaa wuxuu ahaa labada lugood ma sinayn, cumuqa ay dhulka u gelayaan, lugna dhulka aad bay u gashay, lugna dhulka wax yar bay gashay. sidaa daraaddeed waxaan dareemay buu yidhi ratigii meeshaa maray inuu ahaa rati laangara ah ama jiisa. qaadigii wuxuu ku yidhi ninkii rabaadkii ahaa iridda ka bax, nimankaani wax ratiya ay kuu hayaan ma jirto. haye buu yidhi idinka marka gartiinna aad u timaadeen maxay tahay? waxay yidhahdeen annaga garta iyadu gar weyn weeye, gar aan horay u dhicin weeye, waa gar cawiis adag. wuxuu yidhi maxay tahay gartiinnu? waxay yidhahdeen aabbaheen saddexdayada wuxuu noo bixiyey cabdullaahi, hal magac buu noo bixiyey. markii uu dhimanayay ayuu wuxuu yidhi cabdullaahi wuu dhaxlayaa, cabdullaahina ma dhaxlaya, cabdullaahina waa dhaxlaya. mid uu annaga ka mida oo markaas uu farta ku taagay ama tilmaamayna ma jirin, keliya sidaasuu yidhi. aabbana wuu dhintay, waa cabdullaahiga aan dhexlaynin. saddexdeeni midba wuxuu aaminsan yahay inuu isagu yahay midka wax dhexlaya oo midka kale uu yahay midka wax dhexlaynin. qaadigu wuxuu yidhi arrintiina way adag tahay, waa arrin uguba aan horay u arag. sidaa daraaddeed caawa seexda, beri subax isukaya keena, aroortii ayaanu arrintiina xal ka gaaraynay. caawna u soo fakaraya. saddexdii reer baadiye cabdullaahi waa la kaxeeyey, waxaa la geeyey qolka martida lagu soo dhoweeyo. qolkan seexdaa la yidhi, halkaana cashadiina laydinku keenayaa, laydinku martisoorayaa, berina maxkamadda imaada. markii meeshii la geeyey ayaa mid ka mida wuxuu yidhi warhoo isjira, ishaana lagu hayaa, jaasuus baana la joogaa, waana la dhegaysanayaa, waana la muraaqabaynayaa, isjira. sidaas ayuu yidhi. xoogaa kadib saddexdoodii waxaa loo keenay casho, waxaa loo keenay hilib maraq ah iyo khubus ama kibis ayaa loo keenay. mid ka mid ah ayaa hilibkii gacanta geliyey, isla markiina uu kala booday. markaas wuxuu ku yidhi ka digtoonaado ha cunina hilibkaani waa hilib ey. kii kale wuxuu soo qaaday khubustii, markaas wuxuu yidhi kibistan ama khubuskan waxaa karisay ama dubtay haweeney uur leh oo weliba 9 bilood ah. haweeney 9 bilood ah ayaa khubuskan dubtay. kii saddexaad baa ugu darnaa. kii saddexaad wuxuu yidhi qaadiga beri hawsheena gelaya oo aynu u nimi oo arrinteena kala saarayaay waa ibnu xaraami, ibnu xalaal maba ahaba, aabba ma laha, ama si kalda o dhan waa wecel. sidaasuu yidhi. markaas ayay seexdeen iyagoon cashaynin, iskana ay waardiyeynaya bal cidda jaasuuska markaas ay ka baqayeen. waagu markuu baryey intii aysan maxkamadda imaanin ayaa qaadiga waxaa u tegey nin xalay nimankan lagu dhex daray oo dul joogay oo warkooda dhegaysanayay. ninkii ayaa qaadiga wuxuu ku yidhi nimankaani xalay sidaasay yidhaahdeen. midu wuxuu yidhi hilibkana loo keenay waa ey ee ha cunina. midna wuxuu yidhi khubuskana loo keenay haweeney 9 bilood u buuxsantay oo uur leh ayaa soo dubtay. midna wuxuu yidhi qaadiga beri qadiyadeena gelayaba isagaaba ibnu xaraamiya oo aan xalaal ku dhalan. qaadigii wuu naxay. kadib wuxuu yidhi saddex nin halay keen, waa la soo geliyey. wuxuu yidhi waxaan maqlay arrimahaas in xalay aad tiraahdeen. aawe midka yidhi hilibkaani waa hilib ey? wuxuu yidhi waa aniga. wuxuu yidhi sidee ku ogaatay? wuxuu yidhi xayawaanka ilaahay subxaana wa tacaala noo xalaaleeyey ee ugaarta ah, ariga, geela, lo'da, ugaarta caadiga ah, kulligood wuxuu ka bilowdaa laf, kadibna waxaa ku xiga hilib, kadibna waxaa ka sarreeya waa buruurta. shaxamkaa ugu sarreeya, buruurta ugu sarraysa, waxaa ka hoosaysa hilibkii, waxaa ku sii xiga laftii. saasay isugu xigaan, lafta, hilibka, buruurta. laakiin xayawaanka orda ee ugaarsada ee subaca loo yaqaan asubac ee muxuu ahaa sida libaaxa iyo eyda iyo
muxuu ahaa shabeelka iyo waxyaalaha la midka ah haramcadkiyo muxuu ka bilowdaa wuxuu ka bilowdaa laf waxa ku xiga baruurta waxaana ku sii xiga hilibka ugu sareeya haddii libaaxa iyo muxuu ahaa shabeelku uu ugu sareyn lahaa baruurta iyaga wala ugaarsan lahaa amaba maba ordi kareen way daali lahaayeen maxaa yeelay waxa daalinaya xayawaan kale wuxuu yahay baruurta ugu sareysa sidaa daraaddeed hilibka la ii keenay hilibka noocaas uu ahaa hilib aybu ah oo laftii waxa ku xigay muxuu ahaa baruurtii hilibkiiba ugu sareeyay qaadigii uu yaabay wuxuu yiri ninkii cuntada u geeyay khaadimka la igu waco khaadimkii waa loo yeeray waxaa lagu yiri hilibkii raggan xala u geysay sheeg wuxuu ahaa wuxuu yiri qaadi rum ku sheegaha xilli dambe oo muxuu ahaa maghrib ah ayaa tii nimankan casho hala siiyo xoolihii arigii ima dhaweyn waxaan kaliya helay buu yiri eygaan soo qabtay eygaasan u gowracay eygaasan sii arintaas marka way asiibeen wuxuu yiri adigu sidee ku ogaatay khubuskan inay soo dubtay haweeney uur leh wuxuu yiri khubuskan loo keenay dhinacna oo ka fiday dhinacna wuu isku dhaganaa oo kama bislaanin sidaa daraaddeed waxaan dareemay wuu yiri qofkii khubuskan muxuu ahaa dubay ama sabaayadan kibistan in aysan wada gaari karin marka ay wareejinayso khubuska dab ku wareejinayso inaysan wada gaari karin coosh ay soo celinayso sidaa daraaddeed dhanka iyada soo xigay wuu ka faxay dhankii kalena wuu isku dhaganaa oo dab kuma gaarin intaan kaliya ay dab ku celcelisay qaadigii madaxu qabsaday wuxuu yiri bal hal ay soo ogaado gabadha ama cidda karisay khubuskan waxa la yiri qaadi khubuskan waxa karisay iblaayo waana haweeney uur leh oo 9 bilood ah wuxuu yiri midda ugu darani waxa weey sidee ku ogaatay inaan garac ahay ibn harami inaan ahay saasa tiriye sidee ku ogaatay wuxuu yiri qaadi rumo ku sheegaha qaadi wuxuu yiri muslima oo carbeed oo dhaqankii iyo wanaagii carab yaqaana marti u timi oo qadiyad ugu timi inuu kala saaro inuu jaasus u diro iyo cid warkooda dhageysatay qof xalaal arinta ma sameeyo sidaa daradeed arinta waxay ka dhacdaa oo nina qof aan xalaal ahayn qaadigii waa naxay halka ay istaagay gurigiisii buu tagay gurigiisii markuu tagay ayuu hooyadiis qabtay markaas ayuu wuxuu ku khasbay in ay runta u sheegto cidda uu yahay cidda aabihiisa hooyadiis way qiratay waxay qiratay inuu san aaba lahayn oo aaba la'aan ku dhashay sifo oo غير sharci ku dhashay qaadigii bas qaadigii uu soo noqday uu soo dhax fariistay ragii kadib ayuu wuxuu ku yiri waa yahay awi kii yiri hilibkan waa hilib ay markaas wuxuu yiri waa aniga Abdullah waa aniga wuxuu adoo dhaxlaysaa halka istaag wuxuu yiri awi kii yiri haweeney uur leh ayaa khubuska dubtay wuxuu yiri waa aniga wuxuu yiri adiguna waa dhaxlaysaa wuxuu yiri awi kii yiri qaadigu waa wacd ama ganac basiro aniga way siir adiga ayaan dhaxlaynino wiilashan lama aadan dhalan adaa garaca sidee ku ogaatay wuxuu yiri garac ma ogaado ilaa garac kala ma ahane ibn harami baa kaligiisa wuxuu ogaan karaa ibn harami kale saddex wiil oo israaceen hooyadood oo nool ayay u tageen markaas ay ku yiraahdeen hooyo runta noo sheeg aabaheen saas uu yiri qaadigan u tagnay wiilkana la xugmiyay inuusan aaba dhalin marka run noo sheeg wiilkan ayaa dhalay waxay tiri dhageystay dhahday labadiinaan isku aadaatihiin ama wiilkan aabihiin ayaa wuxuu ka soo helay طريقه ka helay isagoo aad u yar markaas uu soo kaxistay gurigiisu keenay Abdullah ibn u bixiyay aabihiin wiilka ma dhalin ee wiilkan wuxuu ahaa wiil bila aaba ah sifar muxuu ahaa غير sharci ku dhashayo hooyadiis ay turtay sida daraadii wiil aaba lama ahayn sidii ayaa marka wiilkaas meeshii uga baxay labada wiilna ay u noqdeen kuwii maalkii dhaxlay qisada halkaas ku dhamaatay wajazakumullahu khayran